بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada asxaabteyda qaaliga waa mar kale muuqaal kale cusub fadlan muuqaalka noo sheer garay noo like garay si asxaab kale walaalo kale fara badan u gaaro muuqaalka soo dhawaada ayaan idin leeyahay waxaan idin wadaa muuqaal kale cusub muuqaalkan waxaan rajeynaa inaad kala faa'iideysan doontaan muuqaalkan waa muuqaal aad u qiimo badan alaabtan maasha Allah ku dhaw alaab laga daba dhacay waxtarkeeda iyo faa'iidadeedana aan idinka soo tijaabiyay maasha Allah alaabtan haddii aad daa'imatid adiga isjeclaanaya qura iskiinkaada iskiin aad u qurux badan oo dhalaalaya iftiimayo ku noqonaya tan koowaad waxa ay ka caawinaysaa haddii aad tahay dadka kor qaleelka qabo oo maqaarkooda mar walba uu qalalan yahay maqaarkooda uu daraydka yahay way kuu qoynaysaa maqaarkaada maqaar iftiimayo qurux badan ayay kaaga dhigaysaa tan kale waxa ay ka caawinaysaa waxa ay tahay dadka mar walba xididahooda ay muuqdaan ee banaanka yaalaan ay tahay way ka caawinaysaa way ku naaxinaysaa gacmaha lugaha intaba maasha Allah tabarakallah waxay kaaga dhigaysaa jirkaada jir qurux badan maqaarkaada maqaar naacima oo qafiif ah oo waxaan ku dhahay maasha Allah jilacsan nala daawo muuqaalka nala dhameysto soo dhawaada walaalayga qaaliga waa kana hadda alaabteena ayaan diyaarsanaynaa idinkana nala diyaariya muuqaalkana la dhameysto maasha Allah hadda walkan waxaa iigu jiro sidaad ujeedadba waa qaadada yarista ah labadeeda oo fixisa ama qamiirisa ama leebita qofba sida uu yaqaano ayaa iigu jirto qaadada zaaid ayay u yartahay waa ujeedaa aad ayay u yartaa tan kafeega xitaa way kasii yartahay waxa iigu jira halkaa waa xulbadiyo shiidan oo bowdhar ayaa iigu jirta iyadana waxa kaloo halkaa iyaalo waa kaarisaliidka baariiska ah waxa kaloo iyaala vitamin E oil iyo saliida xulbada ayaa ii taala halkaa alaabteena waan diyaarsanaynaa nala daawo muuqaalka sida aan u diyaarinay iyo alaabta kasoo bixi doonta maasha Allah tabarakallah alaabtan haddii aad soo tijaabisid yaa facebookgeeda waxaan idinka rabaa inaad commentiga iigu soo reebtaan waxaan hubaa inay idin cajibi doonto oo aad ka heli doontaan sida anigaba ay ii soo cajibisay mar walba iyo wax walba horta idila wadaagayo waa waxa aniga horta aan soo tijaabiyo markii aniga aan soo tijaabiyo ama aan soo marsado oo waqti aan soo siiyo ayaan idinka idin soo duubaa ama idin soo bandhiga oo idin soo gudbiya qaadada labadeed oo haddana waxaan ku darsaday kaarisaliidka waa mid ka jilcan يعني caano camal waaye dareere zaaidana ma xoogo wuu yara adag yahay laakiin kan kale ee jifiga ah wuu ka jilacsan yahay kareemka maasha Allah jirka aad ayuu ugu fiican yahay asiga kaligiis hadii aad isticmaasho maasha Allah tabarakallah jirkaada jir qurux badan oo iftiin iyo dhalaal wuu ku siinayaa maqaarkaadana maqaar qurux badan oo kaaga dhigaya korka yani lugaha hadii ku adag yihiin jirkaada jir safti oo qurux badan oo kaaga dhigaya asxaabe waan qasayaa ilaa cabaar ayaan qasayaa mar walba waqti walbaba saacad way adkaanaysaa geeda waa ina waxyaabo kale oo dareera ama wax qooyo aad ku dartaa waad ujeedaa hadda kareemkii way dhuuqday oo way adkaysay sidaad ujeeda waa kaasa hadda waan qasayaa alaabtan haddii aad isticmaasho oo aad jirkaada aad u laasimto maasha Allah maqaarkaada haddii uu qalalan yahay haddii aad tahay dadka mar walbaba xididadooda ay soo muuqanayaan oo banaanka ay yaalaan aad tahay way ka caawinaysaa maasha Allah xididaha way ka difaacaysaa waan ku darayaa hadda waxay tahay biyaha ubaxa ama biyaha may awardaha qofba sida uu yaqaan adiga biyihii aad rabtid waa ku qasa kartaa muhiim ma ahan inaa may awardi waxaas haysataa qas ilaa intii ay kaaga noqoto sidii laga raba kareem caadi ah kusoo baxaysaa markii aad qasto oo aad garaacdo waa kaasa maasha Allah waa hadda biyihii iyo kareemkii yaraa iyo fixisadii sidaas kusoo baxda aad u jeedid alaabtana ku dhahay maqaarkaada haddii qolof ay saaran tahay jirkaada haddii ay labeenta ay ka dhamaataan ku dhahay labeentaadi iyo dheehaadi intaba waa lagu soo celinayaa ku dhahay waa alaab aniga idinka huba ku dhahay wax walba aan idin soo gudbinayana waa waxa aniga aan soo tijaabiyay oo aan soo isticmaalay maasha Allah hadda waxaan ku daray waa xulbada qaandada cuntada lagu cuno oo buuxdo waaye hal qaado qaadada yarista cuntada lagu cuno waaye xulbada
markii aad biyo ku darto ama waxyaabo dareera ah ku qasto way badanaysaa oo zaaid ay u badanaysaa. marka adiga haddii wax hal maalin aad isticmaalaysa aad ka rabto halka qaado ayaa kaa badan oo weelka wuu buuxsamayaa. hadda waa kaasa sida ujeedid way adkaato way is adkaysay jaq ay noqotay. waa inaa qastaa marka. waxaan ku daray haddana mar labaad waa biyihii waxooga badan ayaan hadda ku daray intii markii hore aan ku daray in ka badan ayaan ku daray. waxaan rabaa inay si fiican ay isku dhex gasho si fiican isku qaadato. waxaan ku darsanayaa hadda waa saliidda vitamin E oo yar ayaan ku darsanayaa. alaabtan aan ku dhahay caadi ma waa wada vitamin aan ku dhahay. maqaarkaadana maqaar qurux badan ayay ku siinaysaa. gacmo bucbuco qurux badan lagu bucbuco qurux badan maasha Allah ku dhahay jirkaada jir dhalaalaad. haddii aad tahay kiimika haddii aad tahay natural labada waa isticmaali kartaa. alaabtan si dhaqso ah inay kugu shaqeysa haddii aad rabtid waxaad isticmaalaysaa gloves ku gashanaysaa. silikoonka lagu hala gashta soo qaado ku xiro ama bac sida wixii aad heli kartid. gacnaha sidoo kale iyana gloves xididaha daqiiqada laga cunaha ku dhaw maasha Allah. farahaada iyo maqaarkaada haddii ay tub lahaayeen ama miin ama ay ku kakadooteen oo kale ama gabow aa ka dareentay oo kale waa lagu feereynaa liisho qurux badan dhalaalna way kuu sameynaysaa. jirka dhan way kuu feereynaysaa. farahaada fara qurux badan gacmahaada gacmo qurux badan lagu qurux badan maqaar iftiimayo dhalaalayo. jirkaada haddii ay labeynta ay ka dhamaato uu qalalan yahay dareed uu yahay aad ka dareemaysid waxaas dhan waa lagu soo celinay. iskinka iyo maqaarka dhintay oo dhan waa laga qaadaa ku dhaw maasha Allah. adiga warka keeni doono markii intaan aad barato kiimika iyo natural labadaba way isticmaali karaan waa idin sheegay. gabdhaha horta kiimikada marsada aad ayuu anfacaysaa oo kiimikada joogteeyo. waxaan idin leeyahay alaabtan ha moogaanaha yaa waxyaabo kale la idinku daalin. waa kana asxaabteeda sidaasay noqotay maasha Allah tabaarakallah. marka aad marsato natiijadeeda adiga isoo sheegi doono. wasaqda way kaa jijibinaysaa jirkaada. iskinka dhintay waxaasoo dhan waa laga qaada waa laga nadiifinaa ku dhahay. adiga dhanba nooc kala noqonaysaa maasha Allah. wax aan ku tilmaamo aniga waan garan la'ahay. adigan waxaan idinka rajaynayaa in ay igala faa'iideysan doontaan oo markaas aad commentigan igula soo wadaagtaan wixii aad ka faa'iiday iyo wixii aad kala kulantay. sababta waxaan hubaa in aad natiijo wanaagsan aad kala kulmayso. waa wax wada vitamin ah. waa alaab aan inaba aan caadi ahayn. waa alaab natural ah. maqaarkaada iyo jirkaadana aad kuugu qurxinayso maasha Allah. waxaan idinka rajaynayaa guul.